shantan shay samey subax kasta marka hurdada ka soo kacda ama ka soo toosto si aad kor ugu qaado caafimaadka jirkaada iyo midka maskaxdaada labadaba uguna hortagto xanuunada aan ku sharxi doono insha Allah iyo inaad maalintii dareento caajis tabardarri murqa xanuun madax xanuun yani hurdo xanaaq fara badan iyo wax la mid ah balse intaan u guda galin yani shanta shay marka hore waxaa qasab ah yani qofka in hurdadiisa habeenkii ay saxan tahay haddii yani hurdadiisa ay qalqalsan tahay qofka way adag tahay shantaas shay yani in natiijo fiican ay soo saaraan marka hurdada markaa iska saxda kadib subax kasta markaa hurdada ka soo toosto sameey shantan shay ee soo socota kow qofka waxaa qasab ah marka hurdada ka soo tooso inuu ku bilaabo biyo haddana kama hadlayno cadayga iyo maaragta qubayska iyo dukashada salaada iyo cibaadada iyo taas gooni waa dadka dhan wada ogyihiin balse qaladaadka halka oo ka jira ayaan saxeynaa waxaa laga yaabaa qofka inuu subax ku bilaabo shaah kulul taas caafimaad ahaan ma wanaagsan oo sida horta inaad ka arkaysaan qofka biyo diiran micnaha kulul lagama wado wax yar qandac oo la qandaciyey oo biyaha qabow ma fiicna caafimaad ahaan subax la sida qofka inuu ku bilaabo sida horta inaad ka arkaysaan oo qofka tabardarri iyo waxay u keeni karaan garaac wadnaha inuu يعني hoos u dhacay qabowgaas faraha badan looma ogolo qofku waxa la rabaa biyo diiran jirkan uu ku bilaabo soo jirka firfircoon uu helo dhiigana ma aragti si fiican ugu shaqeeyo marka biyaha diiran maxaa loo doortay oo yani qofka shaah maadaama bulshada inta badan shaah ay ku bilaabaan maxaa biyaha diiran dhaqaatiirta ugu taliyaan inay ku bilaabaan sababtu waxay tahay maadaama jirka yani in muddo ah oo nasanayo ama uu jiifay sunta jirka ku jirto يعني إن لقى السعر يا لو بعيا أوش أو دوح الله لو سمي سدورتنا كاركيسان مركب بيها جيرك السنطة يكساري كران بس شاهش سكر فرب بدن لمركب كوب بالعوض يعني جيرك واسيس سميسي مركب مو أنا يكسنو كلية هذا يعني حبنا كل الدون جيرك هذا ديجا هذا واحد نبو حافي عن إن بيها ديرنا كوب بالعوض سي واستخدمنا برنامج جيرك وقصارت واحد كستو وثقة مدام بربرنتو عنتدي واحد وثق فرب بدن يعني كسو بحده وسقط jirka ugu saarto biyahaas diiranna cabto yani ayaa wanaagsan subax hore sababtana faantay ay rajaynaya marka shaaha ku bilaabin subaxii oo biyaha diiran ku bilaabo hal galaas ama laba galaas ay aad u si fiican waa caabi kartaa si hortina ka arkaysaan labo qodobka labaad qofku waxa fiican subax aroortii hore yani qorraxda inuu jirkiisa u banbixiyo ama u bandhigo sababtana waxay tahay saa ognahay vitamin D ga jirkeen inuu soo saara waxay ku xiran tahay yani qorraxda marka isbuucii 3 maalin kamid ayaa wanaagsan qofku inuu jirkiisa qorraxda u bandhigo maalin kasta subax waa sameyn kartaa waxa wanaagsan aroortii hore yani qorraxda ayaa aad u wanaagsan oo saa ognahay vitamin D wuxuu muhiim u yahay in lafaheena yani inay noqdaan kuwo awood badan marka haddii aad ka cabanaysa lafa xanuun iyo wax la mid ah inta badan aad tahay qof aan qorraxda arkin yani saameynta halkaas way kaaga iman kartaa marka qorraxda faa'iidooyin badan ayaa ku jira subax aroortii hore qofka inuu yani u banbaxo oo jirka yani maadaama qofka habeenkii dhan oo jiifay yani jirka ay active ka dhigaysaa oo sida hortina ka arkaysaan xitaa circulationka dhiigga ama qulqulka dhiigga yani sar u kacaya ku imaanaya yani dhaqaaqiisa maadaama qorraxda diirimadeeda ama kuleelkooda jirka uu ku dhacaya xitaa difaaca jirka yani aad ay muhiim ugu tahay la dhahay maadaama jirka active oo noqonayo mid firfircoon oo noqonayo marka qorraxda waa muhiim subax kasta 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo wax la mid ah qofku inuu fariisto ama uu ku soo socdo wax wanaagsan waay dhanka kale marka laga eegana sida hortina ka arkaysaan jirka maadaama ma aragtay 12 saac ugu dambeeyay laga soo bilaabo maqribka ilaa waaga intuu ka bariyay qorraxda ka soo baxayso maadaama wax iftiin oo dabiici ah oo san arkin iftiinkan leerka ma ahan iftiinka dabiiciga yani oosan arkin oo midkan yani maalintii ayaan ula jeedaa sida hortina ka arkaysaan arrinkan waxay si dabiici ah yani u ziyaadinaysaa soo saarka hormoonada qaabilsan farxadda sida hortina ka arkaysaan sida endorphiniska iyo wax la mid ah serotoniniska ay aad sare ugu qaadaysaa sida cilmi baarisada hortina ka arkaysaan lagu sameeyay marka waa muhiim dhan walbaba yani in qorraxda يعني aroortii hore qofka jirkiisa oo bandhiga ama oo fariistay wax la mid sida hortina ka arkaysaan saddex qofku waxa fiican inuu jimicsi sameeyo oo sida hortina ka arkaysaan yani qofka maadaama muddo dheer oo jiifay murqihi saadihi wixdan yani aad ay isku galayaan marka jirku wuxuu u baahan yahay
in la kala bixiyo kala bixiskaas marka waa jimicsi waayo qofku inuu wax yar ordo guriga dhexdiisa yani barxadda uu ku ordo ama yani jimicsi yar bush up yar iyo wax yar oo sameeyo oo sida arkaysaan hadduu qofka taas sameeyo waxaa dhacay in maalintii oo dareemo murqa xanuun iyo tabar darro iyo daal iyo wax lamid ah marka yani qofku waxa wanaagsan inuu jimicsi sameeyo oo yani wax yar oo ordo ama guriga dhexdiisa uu ku socdo 30 daqiiqo wax lamid ah ama banaanka doo u bixi kara yani xawaa 30 daqiiqo oo soo socdo way wanaagsan tahay ama shaqada marka aadaysataa yani ina socod ku tagto way fiican tahay oo jirka yani waa uu kala baxaya gaar ahaan murqahaas arkaysaan iyo kala gooyshada yani aad ay muhiim ugu tahay yani dhaqaaqaas maadaama qofku muddo dheer aysan shaqeynin marka waa muhiim ayadana qofku inuu sameeyo haddii kale waxaa dhacaysa sheegnay murqa xanuun iyo waxyaabahaas uu qofka dareemaya marka waa muhiim jimicsiga ama soo socodka jimicsiga kaliya ina ordo ama ina birqaada ma ahan inay bush up sameys kaliya laakiin ina soo socod badan sameeyso ay fiican tahay 30 daqiiqo sababtoo jirka ay aad u furfuraysaa qofka fircooni badan ayuu dareemayaa oo shaqadii ama waxbarashadii ama goobta yani markaas uu socdo kuma caajisay adoo jimicsiga ka hormarsado afar qofku waxa la dhahaa subaxii hore aroortii hore waxa wanaagsan inuu ku bilowdo waxyaabo fudud sida qudaar iyo waxyaabo kale yani snacks waxyaabaha loo cuntooyinka fudud inuu ku bilowdo يعني waxyaabo yar daahili karta rooti yar iyo wax la mid ah daahili karta inaan ku bilaabato ayaa wanaagsan halkii aad ka cun leed cunto culus saacad ama 2 saac kadib qofku inuu cuno way wanaagsan tahay laakiin aroortii qofka inuu cunto culus ku bilaawdo ma wanaagsan caafimaad ahaan waxyaabaha hadda aan soo sheegnay kadib markuu sameeyo qofka ayaa quraacda inuu isticmaalo ayaa wanaagsan oo sidoo hortiin ka arkaysaan waxa la lahaa 8 wixii ka dambeeya ama 9 aroornimo wax la mid ah ayaa quraac fuul ah qofku inuu cuno ayaa wanaagsan oo mar walba muhiim quraac yani fuul ah yani qofku inuu cuno fuul waxaan ka wadaa yani quraac ku filan inuu cuno maadaama energy-ga uu ku shaqeyn lahay maalinta ay tahay balse marka hore waxyaabo fudud inuu isticmaalo ayaa fiican sida rooti yar iyo qudaar yar iyo wax la mid ah ayaa wanaagsan qofku inuu isticmaalo aroortii hore kadibna yani barqada markuu soo gaaro 8 iyo wixii ka dambeeya ama 2 saac subaxnimo wixii ka dambeeya يعني قراع فول إنه ayaa wanaagsan quraac fuulkana yani sida hortina ka arkaysaan quraacda ugu fiican waxa waaye qofka in uu qamadi oo kala caano oo kuwan faatka badan ama dufinka badan aan leen oo low fat milk waxaan la caanaha aan dufinka badan leen supermarketada inta badan dukaamada lagu gadin oo soo iibsado Soomaaliya inta badan laga mahelo meelaha qaar laakiin supermarketada waaweyn dukaamada waaweyn waa laga helaa meelaha supermarket kasta waa laga helaa laakiin dukaamada yar inta badan laga mahelo caanahaas qamadi iyo wax la mid ah ku darsanaysaa يعني quraacda ugu fiican waa subax qof yani oo cuni karo waxa la marka qofka hadii aan sayid hormarka soo kaco quraac culus oo cuna maadaama dheefshiidkiisa saacado badan oo soo shaqeyn qofku uu hurday caafimaad ahaan ma wanaagsan wax yar oo fudud inuu ku bilaabo ayaa fiican saacado kadib markii inuu cuntada yani culus oo quraacda in ku filan oo cunno aad isku badiyeen ma wanaagsan ayada taa balse qamadiga iyo canjeero lagu daray xitaa waa sameyn kartaa bulshada canjeero ay u badiyeen حتى canjeerada isticmaalayso waxyaabaha cagaarka qudaarta cagaaran ku darso sida koostada iyo waxaas yani meesha maraqa ugu cunayso koosta ka dhigo marka qaar maraq waa isticmaali kartaa dib ma lahan laakiin koosta iyo waxyaabahaas ku darso aad muhiim u tahay balse qofka haduu quraacda ka boodo waxa dhacay inuu dareemo caajis fara badan jirgo iyo madax xanuun iyo wax la mid ah ama subax aroortii haduu quraac culus ku bilaawdo ayadana ma wanaagsan marka sidaan sheegnay sameeyo sidaas ayaa wanaagsan oo waxyaabaha dufinka badan iska ilaaliyo si gaas iyo wax la mid ah aysan idinku kicinin marka quraacda yani waxa la dhahaa eat breakfast alone la quraacda kaliya oo quraacda waa energy ugu muhiimsan qof oo qaato cuntada ugu muhiimsan qof oo qaato marka arinka marka waxay sare u qaadaysaa si guud yani caafimaadka jirkaada maskaxdaada yani firfircooni badan ayuu qofka dareemayaa sidoo kale waxa muhiim ah biyo cabka qofka inuu bato aad u bato maalintii 2 litir wax la mid ah oo cabo marka arinka waa muhiim qodobka afraad yani fahantanaya rajaynaya qodobka shanaad yani qodob iska dheeraad ah ka fogow mar walba yani dadka negative-ka ama xumaan sheega ah ka fogow sababtoo bilaadanka uu nugul yahay yani hadallada dadka kale ay dhaawacaan marka waa arin muhiim ah oo waxa laga yaabaa aad u faraxsan saake yani qodobadan dhan sameysay
qof inuu hadal yani xun ku dhaho madax xanuun fara badan iyo niyad-jab ama xanaaq fara badan yani uu kugu keeno maalinta kaa qaldo. qur-aankan oo lagu sheegay dadka yani saameyntooda biniaadanka saameyntiisa aad ay u badan tahay oo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku dhahay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka maa yaquuluun isagoo la hadlaayo rasuulkeen sallallahu alayhi wasallam oo ah yani waan ognahay in waxa ay ku dhahayaan yani laabtaada ama qalbigaada ay ciriiri gelinayaan yani ilaaha qur-aankiisa kula hadlaya rasuulkeena marka waa fahmaysaa yani dhibka ay leedahay marka waa arin ma aragtay caafimaadkaada qaldi karta oo saameyn ku yeelan karta marka ayadana ka fogow dadka ma aragtay negatifeka ah ama xumaan sheega ama baas sheega ama balaayo sheega wax loo yaqaano aad ugu fogow insha Allah. marka ina fahanteen ayaan rajeynayaa shantaas shay ku dadaal si aad sare ugu qaata caafimaadka maskaxdaada iyo midka jirkaada labadaba. haddii kale dii ay ku dadaalan waxaa dhacaya caajis fara badan, jirgo, lafa xanuun, murqa xanuun, shaqada dhexdeeda inay hurdo kugu qabato, arday haddaata inaa cashirka si fiican u fahmin ama aadan u dhagaysanin, yani qofka inaa noqoto qof xanaaq badan, yani jawiga dhanka khaldan yahay. marka insha Allah qodobadan aan sheegay ku dadaal subax kasta ama maalin kasta si caafimaadka jirkaada sare ugu qaado. Assalaamu calaykum.